الله الرحمن الرحيم. إلى ما أذكر oo noo suurtageliyay maanta waqti aan joogno aan halkan soo imaano anagoo caafimaad qabna oo rabnaa inaan ka wada hadalno aan heshiino iyo ku dambaysaa marka labaad waxaa mahad iska leh madaxweynaha Jabuuti ee walaalkeena Ismaaciil Cumar Geelle oo marna aanan ka caajisin marna aan ka daalin sidii dadka waalihiisa ee Soomaaliyeed oo soo wahan lahaa soo keen lahaa wanaagooda uga shaqeyn lahaa waxaan mahad celinayaa walaalkii Muuse Biixi oo isaguna sameeyay geesinimo iyo wafdigiisa oo suurtageliyay inaan halkan isugu imaano waxaan mahad celinayaa safiirka Mareykanka ee Soomaaliya u fadhiya iyo kan EU-da matalaya waxaan mahad celinayaa wafdiga la socda ugu horeeyay gudoomiyaha baarlamaanka iyo wasaaraha iyo golaha wasiirada halkan fadhiya iyo guddiga technical-ka iyo marti sharafta kale halkan fadhida السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركاني إن شاء الله وحن رجينا إنه نقول ما تقول وأنا أقفر إنه شعب كنا صوماليات ملكس إيجوجان محيل وحن كهلنا سيد لو ولا لو بلها وحن نوض قبسنا لها سيد ربح الله وضح لها شركاننا رنتي قبل قابلي سدوان ما أهين sanadkii la soo dhaafay yaan kala hadlay madaxweynaha walaalkeen Ismaaciil Cumar Geelle waxay ahayd inuu qabsoomo Oktoobartii la soo dhaafay oo isagu ka shaqeeyay laakiin ma suroobin waxaan ku iri madaxweynuhu 20 sano ya carta laga joogaa xorriyadda markaan qaadanayna waxa laga joogaa 30 sano sanadka soo socda 2020 sanadkan aan ku jirno 30 sano waa wada joognay dib iyo dheefba 30 sano waa burbursaneen oo adduunkan ugu liidanay meel xun yaan naalay caruurteena waxay ahayn caruurta ugu fursad xun ama ugu mustaqbalka xun caalamka adduunka wax walba oo bini aadamku horumarana meesha ugu hooseysan yaan joognay haday noqoto waxbarasho caafimaad horumar maalgashi wax kasta oo bini aadamku horumari karo ummadda Soomaaliyeed anagoo ah ummad aad u aqli badan u xikmad badan u taariikh fiican wax walba wadaagna laakiin caalamku waxaan ka galnay wax walba meesha ugu hooseysa wax kale ma aha waa go'aanka madaxda ay qaadatay way oo taariikhda galaya hadda iyo mustaqbalkaba marka in si geesinimo leh loo wajaho xaqiiqda dhabta ah loo wada hadlo وعاكي إسماعيل عمر جيلي وكدبي إن أنك واحد الله صدق كسنة صعدة حقيقة جينا صدق سنة وأول الجوجني صدق سنة وكلام قرين كان صعدة عروتنا محان وقتنا الحل يا مستقبل وواحد جود كان له سمي مركا لو الله أو لو فريسته أو لهشيو قان لقاته وحال ربع قان كاس يشيس كاس عدي فلون لهيد عدي فلون لهيد وأيدنك ومدى الصوماليين مالك استجوبت إيش يعني كويسة ماشي على أوك حيسان هداتي جودي فرس ماذا هدات برواقو إيو نبض أوك حيسان يهدات مالك على أوك حيسان بقى أنا وين سينا كل سولدينا dadkii waa qoonta badnaabaatihiin Soomaaliya ama meel kasta Soomaaliya joogto dadku waa qoon badnaabaatihiin waxa loo baahan yahay in mustaqbalkeen hadda aanan waqti hadda joogan idin ka fikirin aad ka fikirtaan 30 sano soo socda caalamka xagee ka galinaa xagee caruurta ila waa tageynaa kulligeen moodo joogeynay dad halkan fadhiya 30 sano ma aqaano inta naga hari doonta laakiin kuwa hadda jooga dhalanaya maxaan uga tagnaa oo mustaqbal ah gacantiina ku jirtaa annaguna taageeradeena waa haysataan waxaan idin rajaynaynaa guul waxaan idin rajaynaynaa is-afgarad iyo oo waaltinimo ku dheexan insha Allah ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inaa wax wanaagsan ummadda u keentaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh